الحرية قادم، نبيت وثق نار قوية قادم، جيل العزة والحرية قادم، نبيت وثق نار قوية قادم، جيل جبار مغوار، جيل يتحدى الأبطال، جيل جبار مغوار، جيل يتحدى الأبطال، قادم 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 قادم، جيل إسلامي المبدأ والأفكار سهم لا يرضى بالذل أو بالعار جيل إسلامي المبدأ والأفكار سهم لا يرضى بالذل أو بالعار جيل يهتف بالقرآن، جيل يقصف بالنيران، جيل يهتف بالقرآن، جيل يقصف bati fillah waqtiga runtii aad ayaan suguray waxaan gelaynaa muxaadaradii saddexaad ee maanta oo ah maalintii koowaad ee mu'tamarkii shanaad ee uu soo qaban qaabiyo masaajidka ama markaska tawfiiq islaamic magaaladan Oslo Norway. muxaadarada saddexaad sidaad ku aragtaan ciwaanka waxa weeye fahamka siyaasadda sharciga. waxaa soo jeedin doonaan ku soo dhaweynayaa Sheikh Mustafa falyatafadal mashkuran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، درس كان لغو تلقى لنا نخريه مفهوم السياسة الشرعية. runtii si haddii loo eego deris ballaadhan noqon kara, si haddii loo eegana la koobi karo qadiyadda siyaasa sharciya ku saabsiisan. aan u malaynayo cajlado hore oo halkan lagu qabtayba inay yaalin. waxaan isku dayaa inaan si kooban uga warramo. ciddii isagoo balballaadhan u baahan waxaan filayaa 15 sano ka hor baa wasalada ku galla inaad masaajidka helaysaan. kelimatu siyaasa marka la isdhaahdo sharxa waa kelmad runtii bini aadamku siyaabo badan oo kala gedisan uu u sharxo, mawaaqif kala gedisanna uu iska taago, gaal iyo muslimba. ilaa xad reer galbeedka marka la joogo, matalan Hans Morgenthau ninka la yidhaahdo ee macruufka kitaab kale markuu siyaasa sharxaya wuxuu ku tilmaamaya waa siraac min ajli alquwa wasatwa. waa legdanka buu yidhi xoogga iyo maamulka sare la isku haystaa siyaasad la yidhahda buu ku tilmaamaya. Harold Laswell nin la yidhaahdo iyaga ka mid isna wuxuu leeyahay asiyaasa hiya sulta watanfiid buu yidhi. waa sultada baawarka iyo fulinta alladhi yuxaddid man yaxsil calaa maada wamata wakayf. وأود لغو حدد بوليه من يحصل على ماذا كما وحن هليا أما ماموليا قرم ماموليا سدو ماموليا. وأرى رنتي أنا رنكر وأرى مطاطة أما معنيه سلب البلادية مركل الدورة سدرادد باجام باردان كان نكال هذا وكتاب له أي فصل كم إذا كتاب كيسو علم السياسة وبحيي أي سؤال سويديني يقول ما هي السياسة؟ سياسة محل يراهدا. مركا وسيكو بنو شرح كرواية صدني يلا بيج بكو شرح يا مركا. ما هي السياسة مركو سويدية؟ أو يصير شرح. أي واحد كقاعدة صدني يلا بيج نسكت ضيو أرجع نصقع ما سوى شرحه. أخيرا مركا ضمبو حوارنا يا واحد شراء استعمالات النوعية هي استعمالات غير النوعية وحكوت المامية. استعمالك غير النوعي قابولي وكلمة السياسة ماشي كتشرته مرادف كده أما كلمة لا معنى بلغو بدل كره مرة كقار كده الإدارة بس كلام تهيبولي أو سياسة النقل هي سياسة الطاقة هي سياسة كذا مرة الله المامية وكلمة الإدارة بلا معنى توت المامية مرة كقار كده كلمة الاستراتيجية بكون معنينا هي سياسة الحرب أو سياسة الحكومة يوحي لم ده mararka qaarkoodna wuxuu leeyahay waa kelmad la xaqiro hadii lagu yiraahdo buu yiraahdaa ceeb ah waa khiyaamada iyo dadluminta buu leeyahay iyo amalka mikaafiliga ah
laftiisa siyaasa loo yaqaanaa buu leeyahay marka xataa mustalaxaasi buu leeyahay waa mustalax jira qofka la xaqirayaana lagu tilmaamaa buu odhanaya markan aragtidaasoo dhan ka soo gudbo culamada sharaxda qaar ka mid waxaabay ku doodaan ereyga siyaasa inaanu ahayn erey af carabiya oo asal kale u raadiyaan laakiin xaqiiqadu waxay u dhowdahay inuu yahay erey af carabiya oo rasmiya oo shicirkii jaahiliga carbeed hore laga helayo bale ibnatu nucmaan ibnu lmundir markii abaheed boqortooyada uu waayay ee markii dambe iyadoo markii hore ina boqor ahaan jirto oo guri magac iyo maamuus la ku soo kortay mar dambe ay rafaaday bay gabay tirinaysay ay kelmadan fiina nasuusu nnaasa walamru amruna yani weedha uu ku jiro calaa kulli xaal waxaan leenahay waa kelmad carbeed oo saxa macaani dhowreeyay qolada macaajimtu soo naqliyaan uu badan yahay macnaha tadbiir ama maamul in wax la maamulo macnaha abaa luqada macnayaasha lasoo gudbiyo ka mid ah waa weedh aan qur-aanka ku soo aroorin lafdiga kani laakiin sunnada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ku soo aroortay xadiidka uu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kaanat banuu israa'iil tasusuhum alambiyaa wuxuu nebigu leeyahay reer banu israa'iil waxay ahaayeen kuwo ay maamulaan nebiyadu kulamaa halaka nebiyun khalafahu nebiy mar kastoo nebi uu dhinto nebi kale ayaa dhexli jira oo ka dambayn jiray aniga se nebi igama dambeeya buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh aniga se nebi igama dambeeyo xadiidkaasoo saxiixayn ku yaalla waxau nebigu ku tilmaamayaa reer banu israa'iil inay siyaasiyiintoodu ahaayeen nebiyadoodii oo ambiyadu inay ahaayeen kuwii maamuli jiray idan lafdu siyaasa waa erayaynu ku tilmaami karno inuu maamul yahay sharci marka lagu daro asiyaasa sharciya marka la yidhaahdo shareecada loo idaafeeyo loo nisbeeyo waa inay noqoto un siyaasad ku abtirsata kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ama siyaasad waxyi ku abtirsata waxyigu ilaahay cumuuman wuxuu inoo tilmaamayaa alaa yaclamu man khalaq wahuwa latiifu alkhabiir ilaahay miyaanu ogeyn cidda uu abuuray isagoo latiifu alkhabiir waxaana nebiyada la tilmaamayay nebi walba shareeco la soo siiyey uu dadka ku maamulo walikullin jacalnaa minkum shircatan waminhaaja alaa lahu alkhalq walamr nusuustaasoo dhami waxa ay sheegaysaa shareecadu inay u soo degto in nolosha bini aadamka lagu maamulo tiisa qarsoon ee qalbiga ku saabsiisan iyo ruuxda tiisa muuqatee daahirka ah tiisa aakhireed ta adduunyo nolosha qofka bini aadamkii leeyahay oo dhan in lagu maamulo walidaalika yaa culamada muslimiinta tacaariftay bixiyaan maala ibnu caqiil alxambali wuxuu odhanayaa siyaasadda waxaa la yidhahda buu yidhi asiyaasa maa kana min alafcaal bxayثu yakunu الnaasu bihi aqrabu ilى الصilaax waabcadu can اlfasaad wain lam yusharichu الrasulu salى اllahu عalayh wali wasalam walaa nazla bihi waxy fain aradta bqawlika la siyaasata ila ma waafaqa sharc ay lam yukhalif ma naطqa bihi sharcu faصaxiix wain aradta ma naطqa bihi sharcu fagalaط wataqliط liلصaxaaba weedha ninka kan markaan soo kabo wuxuu leeyahy siyaasad waxaa la yidhaahdaa buu leeyay acmaasha ama afcaasha wixii dadku u dhoweeya wanaag iyo samaha iyo silaaxa wixii samaha qofka u dhoweeya ayaa siyaasad ee xumaha ka fogeeya xataa yaan qur-aan iyo nusuus xadiisi ku soo degin buu leeyahy laakiin waxaa laga rabaa waxa weeyaan inaanay qur-aan iyo nusuus xadiisa khilaafin saa daraaddeed bay culimada fanniga ka warramay muslimiintii waxay u qaybiyaan nusuusta sharciga wixii uu lafdigu qur-aan uu ka warramayo waa siyaasa ilaahiya bay yidhaahdaan wixii uu ka warramayo axaadiista nebigu waa siyaasa nabawiya bay ku tilmaamaan wixii kalena waa siyaasat almuluuk bay sheegaan ama alumaraa ka fannin marka loo eego waa fan ka mida funuunta fiqiga islaamiga ah ee shareecada islaamiga lagu daraaseeyo waa fanni muddo soo socday waktiyo horena culamada muslimiinta ee kutub gaara u qortay ragga kutubta u qoray hore waxaa ka mid ahaa
450 kii sheekhay dhintay maawardi la odhan jiray 3 kitaab buu leeyahay masaladan ku saabsan al-ahkam as-sultaniya iyo suluk fi siyasat al-muluk iyo tashiil nadar wa ta'jil al-dhafr 3 kitaab wuxuu kaga warramaya qadaaya siyaasa waxa kamid ragga hore wax ka qoray abu ya'la al-farra hanbali aha 458 kii dhintay waxa kamid aha imam al-juwayni imam al-haramayn 478 hijriyada kitaabkiisa al-ghiyathi siyaasaddu markaan soo duubno markaa macnaheeda lugawiga iyo keeda sharciga ma kala foga macnaha lugawiga ay kalimatu saasa yasuusu tعني الإصلاح والاستسلاح وشيء أو له هجاتيه أو له وناتيه أو حاجة سماه يونا جلوسي دويه إذن وحويان مصلحة تأوفي عن إن لا يما دولار ما يستره فساد كان إن لا يريه أما لا ترتره أما سوى شد بيد هذان الدنيا آخرة بلقول لي بانه شد يعني سياسة الشرعية واحد كذا سنت سياسة كله siyaasadka kale waxa lagu qoondeeyaa in noloshan lagu birbirsado laakiin siyaasadda sharciga islaamiga waxay itijaaheedu u jeedaa qofka in la liibaansiin karo aakhiro iyo adduun labadaba inuu liibaani karo sida daraadeed ayaa waxa la tilmaamaa cidda siyaasadda sharciga islaamiga hoggaan wadeenka ka ahiinayeen nabiyada dabatana dadku sida ilaahay iyo rasuushiisa ugu kala dhow yihiin ee uu kala cibaado badan yihiin ee uu kala cilmi badan yihiin inay ugu kala janjeeraan lafdigan markaan sidaada markaa sharax waaray runtii aan ku soo koobi karo weer qura oo ah wixii wanaaga bulshada dhexdeeda in lagu beero min maamul ilaa mijo wixii xuma ah ama fasaadana in la taqliiliyo wanaagaasi baabku doonaba ku saabsanaado cilmi ha ku saabsanaado dhaqaale ha ku saabsanaado caafimaad ha ku saabsanaado wuxuu doonaha ku saabsanaado wanaag oo dhan in la xasiliyo oo la kobciyo xumaan oo dhan waxay doontaa ku saabsanaato in la yareeyo oo la dhimo ama se la tirtiro maadaama siyaasadda aynu nooca ku tilmaamnay siyaasaddu waa laba qaybood markaa qaybi waa mansuus oo kitaab iyo quraan baa sheegaya waa qayb haabita haabitku waxa weeyaan waqtiga iyo zamanka iyo duruufta islama bedesho ee sidaas un bay ahaanaysaa inta basharku bashar yaanu bini aadamnimada ka baxaynin iyana sideeday haabit u ahaanaysaa u sugnaanaysaa isma bedesho qaybina waa qayb marin ah marin waxaan u jeednaa waa qayb isbedbedeli karta ku xidhan duruufta la nool yahay zamanka la joogo awoodda la leeyahay itaalka la haysto arrimahaasi ku xidhan sida awgeed islaamku yani maadaama siyaasaddu bulsho la maamulayo bulshaduna aanay isku itaal iyo awood wada ahayn waxaa dhici karta mar inay joogto marxalad dacf marxalaadkay liidatay marxaladii nabi maxamed allaha kufu aydiikum waaqiimu salaa gacmihiina laabto salaaduna oga lagu tilmaamayay waxa kaloo dhici karta inuu mujtamacu gaarsiisan yahay marxalatu lkamaala alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina oo ah marxalad islaamku iyo dowladnimadiisi iyo wixiisii oo dhan ay dhammaystirmeen oo fulin qura u baahan sida daraaddeed qaybta haabitka aan iska gadinin ee mansuuska iyada lama taataabto waxna iskama bedeli karaan waana sidaa quraan iyo xadiidku ay u sheegeen qaybta marinka ee ijtihaadka aqbasha ee zamanka iyo duruuftii amkinada ku xidhan ee isbedbedeli karta waa ka suurtagal iyadoo loo eegayo basharka iyo awoodooda mujtamaca iyo waxay haystaan cadowgooda iyo intuu leegiyo waxaasoo dhan iyadoo loo eegayo waa wax u baahan daymo tiro badan leh sida awgeed qaybta daymada u baahani waa qayb ijtihaad bashariya ku salaysan haddii ijtihaad bashariya la sheego dadaal bini aadam haddii la sheego macnaheedu waxa weeyaan sawaab iyo khata labadaba u dhici karaa yani ninka caalimka ama ninka muslimka ee aqoonyahankii intuu ijtihaado ayuu gafi karaa idan waxa camalkii uu sameeyey isagoo ajar wuu helayaa
laakiin waa camalu maxay khata ka dambeeya mansuuskuma aha inuu ka camalkiisii raacay waa maxay waa inuu saxo sawaabka dhankiisa uu kaco saa daraadeed ayay culimadu waxay tilmaamaan usuul bay leedahay siyaasa sharciya u baahan cidda fulinaysa inay si fiican u fahamto usuushaasi midi waa tii fiqiga oo dhami uu isticmaali jiray waa in usuusha la isticmaalaya laga istidlaalaya uu yahay qadiyadan laga baadhaya kitaabka qur-aanka kariimka sunnada nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ijmaaci muslimiinta iyo wixii ay ku ijmaaceen qiyaaska oo ah wixii nusuustu ay sheegtay iyo axaadiistu laga qiyaasto oo wixii aanay sheegin la raaciyo iyo adiladii kale tirada badnayd ee culamada usul fiqh ay sheegi jireen almasalih almursala maslaxada la sii daayay waa maslaxo la leeyahay sharciga nusuus diidani ma soo aroorin nusuus ictibaarisayna ma soo aroorin waa masalih mursala masaa'il al-istihsan culamada qaar sheegi jireen albara al-asliya wixii usul fiqh la istidlaali jiray oo dhan ee daliil gali jiray baabka kana daliil buu ka galaya waxa kaloo la socda culimada in badan tilmaamaan qawaacidii fiqiga lagu isticmaali jiray ayaa iyadana in badan la isticmaala مثلا بعد القواعد بان tilmaamayna maadaama ay masaladan ijtihaadaadka tirada badan la u baahan tahay waa masaa'ilka aanay u banaanayn dadka mubtadi'iinta inay ka waramaan waa masaa'il ahlu cilmiga iyo hay'ad takhasus u lahuna ay tahay inay ka waramaan imika waxa ka moodaa casrigan dambe masaa'il siyaasa in laga dhigay waxay caamadu wadaagtay iyo dadkoo dhamiyo qof waliba warkiisa ka dhibto qof waliba muranku ka dilaaco asaasi lagu wado laakiin ma aha waa maslaxad ummadeed waa wixii ugu weynaa hal qof in la daweeyo u baahan bay waxaynu idhahnaa atibada loo kulmiyo يعني تخصصك نفطا نساني وقوينو لو إلاليو أي أطباء انتي ونوغو رونايد بينو لأن هاي نفطا نيا قوين ملايين قف ان دقال يدريريا بليا بس لغو قوينو وحنو ربنايين هبروه كشرانا ما قضيال قبل السويديانا معين غير معقول يعني وحي هاي هل قف بينو أقول لهين إنو يسوقو قينو قوة دينو دان إنو نولشيسا كو إلالينو waxay ahayd dadkii oo dhan marka la isu wada keenay noloshooda in la ilaaliyana inay ahaato nukhbadii iyo dadkii u caqli badnaa u aqoon badnaa u diin badnaa u alla kala cabsi badnaa ugu faham badnaa qadiyaadkana inay ahaadaan dadka loo ururiyo sida daraadeed baabkani ijtihaadku aad buu ugu tiro badan yahay mansuuskuna wuu ku yariyay يعني waxaan uga jeedaa mansuuska qadayaadka waadixaad aayad quraan ama xadiis go'aanu helaysa sideeda loogu dhaqmaa wuu kooban yahay masaa'ilka cibaadaadka bay ku badan yihiin iyo aqaaida looguma talagelin aqli baadan kuwa la dhaxgaliyo sida daraadad kuwa nusuusta ku tira badan salaadu boos aqli uu ka gala male meel walba xadiis baa lagu akhriyo in marka waxa la yiraahdo in marka farta la dhaqdhaqaajiyeen marka saa la yiraahdo boos kuma le aqli idan cibaadaadka iyo aqaaida nusuus saabita oo tira badan oo sugan ba taala ama qadayaadka caamka siyaasiga ku saabsan inta ugu badan leh nusuus caama ba taala oo ah canaawin aan la rabin in laga baxo laakiin tafriicaadkeedu uu baahan yahay aqoon tira badan leh ijtihaad tira badan leh iyo aragnimo tira badan leh saasi daraadeed ma aha baab uu ka waramo dadka mubtadiinta ah dadka bilaaba culimadu waxay sheegaan oo baabkan tilmaamaan qawaacid ba jirta bay yiraahdeen alqawaacid alfiqhiyya alma'ruufa inta ugu badan leh baababkani waxay ka mid yihiin baababka loo adeegsado مثلا tusaalayaal baan bixinayaa qaacidada la darar wala dirar nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu alayhi xadiis buu ku tilmaamay la darar wala dirar dhib iyo isdhibisi midna ma jirto kelmadatan la darar wala dirar oo siyaaqu nafyi ku soo aroortay oo cumuumnimo faa'iideynaysa waxay culimadu yiraahdaan waa qaacida min qawaacid ash-sharc waa qaacida min qawaacid as-siyaasa ash-sharciyya bay ku tilmaamaan waxay yiraahdaan dararku yumnac wuquu'uhu inuu dhaco waa la joojiyaa hadduu dhacana inuu istimraaro waa la joojiyaa haddii la filayo in laga hortago intuba bay leeyihiin shareecada ayna faraysa مثلا الضرر يمنع وقوعه
waa ijraa'aadka wiqaa'iga waxa loo yaqaano waxa wax lagaga hortago oo dhan مثلا traffic log wuxuu ka waramaya traffic log wuxuu ka waramaya inaan dhibi iman waa ijraa'aad loo dajiyay inaan maxay socodku dhib keenin haddii aan dhibiba jiri lahayn traffic loo ma jireen wax looga baahan yahay kale ma jirto laakiin si mashkiladda ka iman karta looga hortago ayaa loo dajiyay in traffic loo qaato idan shariicada islaamiga waxay tilmaamaysaa wax allaaliya wixii darar ee la filayo inuu yimaado in laga hortago oo loo dajiyo ijraa'aadkii lagu joojin lahaa inaan waxaasi dhicin hadduu dhaco waa in la difaaca haddii la filayo waa in laga hortaga haddii uu dhacay oo hore u dhacay waa in aahaartiisa la tirtiraa yani dararka dhacay aahaartiisa sidaa loo tirtira waxa wey inuu qofku cuquubo iyo jazaa helo abaalmarin inuu helo amase ciwad inuu helo compensation inuu ka helo dhibtii soo gaadhay iyo wixii ku dhacay waxaasoo dhan nusuus badan oo qur'aan iyo xadiisa ayay masale kasta u daliishadaan laakiin anigu waxaan isku dayayaa qawaacid guud inaan dul maro waayo waxay cinwaanku yahay waa mafhuum asiyaasa sharciya kama waramayno markaa ususkay ku dhisantay majaalaad ku dhisantay qawaaciddeeda saa loo laakiin waxaan ka warramaynaa mafhuumka bal inay fahmi kartaan guud ee siyaasa sharciya ay ka waranto مثلا قاعدة لبعض الدليشدان وحكمده الضرر يدفع بقدر الإمكان ضرر بعد عدب بايمانيسه دفاع دفتا للدفاع يا وحي كحران تهي انت اللي أوده هدان لو ده أودين وحي اللي أوده لقى موده تقي بيد هذا مثلا قاعدة صدحات بيشيغانوه احتمال أخف الضررين لبضر ديبوت تفضط إن لقاته مرر با waxaa dhacdo qofku inuu gaadho xaalad aanu wax kasta uu qabto aanay dhibeelaynin wada kasta uu raac dhib baa taala no way uu dhib la'aan u dhici kara waxa lagu xisaabtamaa markaas in la yiraahdo dhibta kee u fudud misaal aan idisiyo qaacidadii khadar iyo muuse qisadii dhex martay khadar suurat al-kahf ilaahay quraanka wuxuu kaga waramayaa in nabi muuse uu yimi uu weydiistay inuu wax baro oo ogolaaday in waxbarashada uu raaco safar baad ila galaysaa buu yidhi wax waa ku baraya laakiin aniga wax ku sharxa mooyaan su'aasha ay ugu badinin waxba hay weydiinin buu yidhi khadar taasuu muuse ka codsaday muuse khadar afcaashiisii wuu adkaysan kari waayey su'aal markuu wax sameeyaba su'aal buu ka daba weydiiyaa warsamiyana ku ballamin buu dhowr ku yidhi caynkan iyo cudurdaar mar saddexaad wuxuu yidhi mar dambe haddaan wax ku weydiiyo waa kala tegaynaa mar saddexaadkiiba wax weydiiyey waxay noqotay in la kala tago dabeetana wuu sharxay saddexdii qadiyadood ee muuse iyo soo kala maray khadar mid ka mid ah haddaynu tilmaamno doon bay fuuleen doonta noolila-aan baa lagu soo qaaday dhexda markii la marayay ayuu khadar doontii loox ka saaray muuse wuxuu yidhi waxani wax macquula ma hadde nimankiina soo qaaday doontoodii inaad adigii daloolisaa sootaynu ku ballannay buu yidhi inaad aamusanaato maaha waxbay weydiinin waa cudur daasa markii dambe khadar sharxay arrimihii oo dhan wuu sharxay wuxuu yidhi wamaa facaltuha can amri horta wax allaaliya waxaanaan sameeyey wax anigu iskay aan u sameeyey ma jirin ee waxay ahaayeen shareecadii aan raacayaa sida tan dhigaysay muxuu doonta u dalooliyey wuxuu sheegay muuse inuu ka dambeeyaa nin boqora oo doon kastoo hagaagsan qaadaya markaa khidir wuxuu kala doortay doonta in dadka masaakiinta hele laga qaado iyo inuu doonta ceeb u yeelo boqorku yidhaha tani mid fiican maaha inaga sii daayo ay qolada tani dib ula noqoto labadaas u kala doortay inaad xoolo bini aadam leeyay ku tasaruftaa marka hore waa mamnuuc bay ahayd nimankan doontooda loox iyo laba toona in laga saaro waa mamnuuc laakiin khidir wuxuu joogaa xaalad uu og yahay in dadkan in doontoo dhan laga qaado iyo iyadoo looxla inay raacdo inuu kala doorto wuxuu doortay markaasi halkii doontoo dhan laga qaadi lahaa inuu loox iyadoo la ay
uu loox ka tiro oo ay saasi ku raacdo culimadu waxay dhahaan masaladani waa khafu dararayn waa ilow dhib baa jiraysa markaa masaakiinta taa u dhib yar ma hal loox baa u dhib yar mise doonto dhan ay waayaan baa u dhib yar wuxuu khadar door biday markaa inay hadda dhib yar tahay in hal loox laga saaro marka waa khafu dararayn waa laba dhibood oo meesha taala saa daraadeed baa sheekh ibnu taymiya raxmatullaahi calayhi waxa uu tilmaamaa وهذا باب تعارض باب واسع جدا لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة فإن هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات ووقع الاشتباه والتلازم فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين ولا يبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة على كل حال وهذا الدير وشيخ وانكسر نغلني وحاولي هاي مركة تعارض كله يعني أدلة مركة إسكاكا خلافته dhibta meesha jirta ay dhib badan timaado waa baab aad u ballaaran buu leeyahay siiba waqtiyada iyo meelaha ay yaraata buu leeyahay raadadkii nebinimada iyo khilaafadii nebinimadu ay ka tagtay markastoo yani dadku diintu kasii fogaadaba ijtibaaha kani uu sii tiro bataa waayo markastoo dadku mustaqiim noqdo oo uu toosnaado dhibtiisu way yaraataa markastoo dadka mushkiladiisu badato xalkuna wuxuu noqdaa wax adagoo qarjajac badan ay ku dhex jirayso oo aan noqonayn ninkii saafiga ahaa ee dhanka quree tooska u soconayay sida daraad wuxuu leeyahay sheekh ibnu taymiya markastoo naqsiga kani uu ku dhaco bulshadatan su-aalahanina ama masaa'ilkanina way tiro bataan waana sababaha in badan keena buu leeyahay fitnada waayo dadka badh markay xasanada iyo sayi-adu isdhex galaan buu leeyahay dadka badh xasanadunbaa u muuqato ay rajaxaan dadka badhna sayi-adunbaa u muuqato ay rajaxaan dadka badhna qadiyadda isu miisaamaano way eegeegaan saasi daraaddeed waxaa timaada tabaayun ilaaraa aaraadu inay tiro badato marka aan leenahay ixtimaala khafi dararayn waxaynu tilmaamaynaa marka shareeco la dabaqayo meel faadiya intaad timaado ku dabaqi mayso meel madhan heli maysid aan wax kala olin adiga taaduna ka socoto marka kitaabka la akhrinayo se meel faadiyaad helaysa adiga taadun ka socoto yani waxa kala nooca haddii kitaab aan masaajidka ka akhriyo waan sheekh noqdo kursiga fadhiyo kursigii sheekada anaa fadhiya nusuustun waa inaan isa saara itijaaha saxa ay leedahay tilmaamaa laakiin waaqaca haddii la isidhaahdo ku dabaqa tuuro badan bay yeelanaysaa waxaana tuuraha u yeelaya bulshadan la rabo in lagu dabaqiyo intay diinta ka fogtay hadba inta waxa ay ka aaminsan tahay inta ay ku dhaqmayso inta gacan dabadeed ay ku jirto intay munaafiqiin leedahay intay dad saalixiin oo toosan leedahay inta ay dad samaha u gargaaro leedahay inta ay dad xumaa u gargaaro leedahay wax badan baa markaasi kaa hor imanaya oo aan ahayn nusuustii muran kama yaalo sidaa daraaddeed marka la tilmaamayo akhafu dararaynka markaynu sheegayno shareecadu wax darara ma wado waxay wado dhami waa samo laakiin bulshada baa mashaakilkani ka imanaya u baahan in la xalilaa in la kala horaysiiyo qawaacidda marka baabkan laga warramayo la tilmaamo waxaa ka mid a qaacidada yidhaahdaan muraacaati alma'aal waictibaari ma'aalaati alumuur waxa markaa kuu muuqdo inaad eegin ee aad eegto waxa kan natiijada ka dhalanaysaa muxuu noqonaya maxaa ka dambaynaya maxay soo baxaysaa oo waa maxay inta aanad ficil fulinin inaad in badan ka fakerto natiijada ka dhalan kartaa waxay tahay sala nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh caaishu wuxuu ku yidhi lowlaa ana qawmuka xadiisu cahdi caaishaay tolkaa haddaanay ahayn kuwo diinta ku cusub quraysh yacni haddaanay ahayn kuwo diinta ku cusub oo hadduu diinta soo galay kacbada waan dumin lahaa buu nebigu leeyahy oo dhulkaan la simi lahaa kacbadu dhulka way ka kacsantay mooyaane waa meel sare ayuu albaabku kaga yaala yani dhulka in doora bay kasoo kacsantay markaa nebigu wuxuu leeyahy kacbada waan dumin lahaa dabeetana dhulkaan ka dhisi lahaa dabeetana laba albaab baan u samayn lahaa in ay ka tagtay mushrikiintii carbeed markay dhisayeen yani kacbada waktigii quraysheed
oo nabiguna markaa dhowriya 20 jiriyaan wali rasuulba noqonin ayaa daad magaalada qaaday daadkii baa dhinac ka dumiyay quraysh markaa waxa aqbashay inay kacbada dumiyaan oo dib u dhisaan laakiin waxay ku heshiyeen xoolo xalaal ah inay ku dhisaan xoolo riba gashiya waxaasi xoolihii xalaasha iska heleen soo ururiyeen baa natiijada ka dhalanaysa muxuu noqonayaa maxaa ka dambeynaya maxay soo baxaysaa oo waa maxay inta aanad ficil fulinin inaad in badan ka fakarto natiijada ka dhalan kartaa waxay tahay tala nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi عائشة وحكوا لولا أن قومك حديث عهد عائشة تلقى هدانا يهين كوا دين تكو عصب قريش يعني هدانا يهين كوا دين تكو عصب وهدون دين تصوق علي كعبة دوان دمين لها أبو النبي قولي ودول كان لصم لها كعبة دول كويكا كعصنتين يعني وميل سري أيها الباب كجيا يعني دول كان دورة بيك صوك كعصنتين وكان النبي يقول حلي كعبة دوان دمين لها dabeetana dhulkan ka dhisi lahaa dabeetana laba albaab baan u samayn lahaa in ay ka tagtay mushrikiintii carbeed markay dhisayeen yani kacbada waqtigii quraysheed oo nabiguna markaa dhowriya 20 jiriyaan wali rasuulba noqonin ayaa daad magaalada qaaday daadkii baa dhinac ka dumiyay quraysh markaa waxa aqbashay inay kacbada dumiyaan oo dib u dhisaan laakiin waxay ku heshiyeen xoolo xalaal ah inay ku dhisaan xoolo riba gashiya waxaasi xoolihii xalaasha iska heleen soo ururiyeen baa intii ay kacbadu ka dhisnayd bay gaari weyday marka waxay dhaahdeen aan ka yarayna hadaba kacbadu waa qol yarde waa gurigaan intii ka yarayna bay dhaahdeen dhismaha nus bay ka tageen intan xijriga yar la yiraahdo dhinaca kaga wareegsan intan kacbada ka mid ahay dabeetana intaasay ka soo guureen 6 foot 6 diraac bay dib u soo noqdeen oo ay ka jareen intii hadhay bay dhiseen kor bay u dhiseen waxay dhaahdeen meeshan taaydu inagu control ninkii doonaaba aan u gelin meel sarana aan ka dhigno albaab quraan u yeelo furiisa haysano nabiguna markaa wuxuu leeyahay Aisha hadaan tolka imika soo islaamin kacbadaba intaan dumiyo ayaan sees cusub dhigi lahayo qawaacidii nabi Ibraahim uu dhigay inta ka dhigo ayaan laba albaabna u samayn lahaa mid laga galo iyo mid laga baxo ayaan u samayn lahaa buulay nabigu muu yeelin wuxuu yeelay wuxuu leeyahay waxaan ka cabsanayaa dadkani inay tawraan sameeyaan yani in la dumiyo oo sidan loo dhisaa sidii sax ahayd laakiin haday khalkhal iyo rabshad keenayso sideedan baa iska ahaatade maradaanay inteedan ba ay kacbadeedii ku ahaanayso sideedu nabigu u daayay salawaatullaahi wa salaamu alayhi idan maalaat al-umur qadiyadu waxay ku gabagaboobaysaa u baahan in badan la eego mesela munaafiqiin baa nabiga la noolay rabshad badan عبد الله بن أبي باجوغي منافقة وربشد بدن ومشاكل بدن وجيستي مسلمين تا حادثة الإفك نكي سمية بين أبورة كعاشة بين تكسمية إن غزوة بني المصطلق بركي جدا بقى لقى صار نقضي نكي وحكوا هاد لي سمن كلبك يأكلك إن نكي سكدري صحابة الجودة هذا لأن هذه مشكلات بضبوها شاكل كيسي مركي اللي تشوف كرواية بعمر إلهي رسول كيسي وكان مدحك قوي يعني ديلو ومنافق ولا ودا اوغيahay bulshada dib ku haya in la dila waa suurtagal laakiin nabigu uu diiday wuxuu warbal hadilid ninkana wuxuu kamid yahay ansaar gudaheeda way iska dishay wixii waayeel ka talin jiray ansaar oo dhamay xarb buucaas iyo xarb lubasus bay ku madheen laba oday baa ka soo hadhay wax odayaala baa la yiraahdaa labada oday mid waa Abi Amir al-Fasiq wa Hanzala abihi ونكي عررية مالنتي وحدثه وذي قال ذا لها أنيقا تلقي راعي ندو مركنو قعن هذه كيك لنو عبد الله بن أبي أبو عامر الفاسق وأبو عامر الراهب كله رجل كريستيانة تبو قاطي مركي دمنا شام بو عرري كي لبعضنا نواكا نينكا السلطان بو سوغي مركو نبي قميشة يمي بغرطوي سوغي وحاول لتولي تاج كي لصار لها iyadoo taajkii loo tulayo nabi maxamed magaalada yimi salawaatullaahi wa salaamu alayhi dadkii dawladda islaamiga ahayd baa dhisantay abdullaahi baa cid dib uma eegin marka isagu wuxuu arkaa dawladda islaamiga inay kursigiisa qaadatay oo uu waayay booskii madaxnimo saasi daraadeed buu mashaakilkan tirada badan la waday Umar ibn Khattab baa ilaahay rasuulkiisa iyo kanaan madaxa ka jaro wuxuu nabigu yiri
dadku kuma sheekaysan doonaan maxamed asxaabtiisu laaya wuxuu u diiday in la dilo isagoo ilaalinaya sumcadan dowladda islaamiga iyo bulshadan islaamiga iyo inaan mujtamacaad kale ku warramin maxamed inta yare la socotuu laaya ama dadka isaga la jooga buu laaya waxaan qadiyaadka u tilmaamayna waxa weeyaan ma'aalil umuur buu eegayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh arrintu waxay ku gabagaboobayso sida daraaddeed bay nusuusi xataa soo aroortay waqtiyada dagaalka lagu jiro xuduudda ma lagu oogayaa meeshii gaalka iyo muslim isku hayeen iyadoo ay suurtagaltay qofku hadduu daciiful iimaan yahay inuu baxsan karo oo dabeetana xagga kale uu gudbi karo qaacido kalay sheegaan culammadu oo ah taqdiimu alaham walawlaa asiyaasa sharciya waa arrimuhu siday u kala waaweyiin in loo kala horaysiiyo oo waataynu soo tilmaamnay qadaayaadku siday u kala muhiimsan yihiin sababooda may ku xidhnaan kartaa waxay ku xidhnaan kartaa waktiga iyo cidhiidhigiisa waxay ku xidhnaan kartaa awoodda iyo sidaad cajsi u tihin ama aydan awood u haysanin waxay ku xidhnaan kartaa shayga iyo fadiiladiisa idan mar kastaba shaygu shaygan inuu ka fadli badan yahay ma keento in laga horumariyo ee marar bay keentaa masaa'il kale in laga horumariyo si kale haddaanu tilmaamo darfiga ama waktiga la nool yahay wax badan buu xadeeyaa qadaayaadku marna nusuus qura bay ku kala awlaysan yihiin oo marka shareecada si caama loo eego tawxiidka ugu horeeya arkaanul islaamka ku xiga saasay u kala horeysa midna waa awlawiyaat nisbiya yani wax kale marka loo eega bay kala horeysaa oo ama waktiga la joogo ama awoodda la leeyahay iyo bulshadu itaalka ay leedahay iyo wixii la nooca nusuus quraanka iyo xadiidka ah in la tabaqaa oo bulshada lagu tabaqaa waxay u baahan tahay markaa aqoon tiro badan iyo awood tiro badan labadaba aqoon bay u baahan tahay oo waxaa tabiqi kara runtii alculamaa alrabbaaniyuun markase nadariga ay tahay lagu sharxayo masaajid gudihii ama dee dariskaa la jeedinaya ay hor fadhidaan ay tahay aalibulcilmi kasta oo bartay markaasi waa akhriyi karaa amase waa jeedin karaa laakiin markay tatbiiq iyo maamul noqoto ma fududa inkastoo dadka iskala fududahay soomaaliduna horey u maamaado waxay idhahdaan habar fadhida legdiri wax kala fudud bay idhaahdeen yacni laba qof oo legdamaya haddaad aragto muu halkaa qabto laakiin haddaa adigu isgashaan oad legdinta ku jirto inaad halkaaba haleelin baa laga yaaba aad adigu marka kan sheegayso marka qofku marka aanu camalka isaga haynin oo gacantiisa ku jirin wax waliba waa la fudud yihiin ama meesha laga eegaya aad bay u fududay sidaa daraaddeed aan tusaalayaal basiita bixiyo waa tusaalayaal fardiya laakiin bulshadana aan uga tusaale qaadan karno مثلا النبي صلوات الله وسلامه عليه نين باو يمي سواء على يوله هلكت الى رسولك سوا هلاك سمي واقفتي بين رواياتك قاركود شيغيا war maxaa dhacay baa la yidho wuxuu yidhi islaantaydi baan ramadaan u galmooda wuxuu nabigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh raqabo xore intuu luqunta istaagtuu yidhi taa mid aan ahayn ma haysto ilaahay rasuulkiisiyo waxa la xoreeyaba ma haysto waxaa lagu yidhi ninka kan waxaad soontaa shahrayni mutataabicayn 2 bilood oo isku xiga soon wuxuu yidhi ma haddaan soomi karayo managa islaantaba isku lugo ilahay ilaa wuxuu ka cawdayba wuxuu nabigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh 60 miskiin قودي oo sadaqa la bax bar madowba malihi buu waxaan haystaa ma jiraan tara iska fadhiistay ninkii nabiguna iska aamus waxa la keenay sadaqa la wado sadaqadii markii la keenay ayuu nabigu ku yiri salawaatu ullahi ta'ala ayna saay warmay ninkii wax weydiinay waa kan baa la yiri qaada buu yiri taasoo iska bixi yani sadaqadaad haysanin tan qaado sadaqadee buu nabigu yiri iska bixi
wahal bayna laabatayha man afqaru minii buu yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo madiine labadeeda buurood labadeeda xaraarood oo ma mid iga faqiirsan ma jooga wax la siiya buu yidhi mid iga faqiirsanoo wax la siiyaba miyaa jooga qaado oo reerkaaga sii buu nebigu ku yidhi yani maxaa keenay ninkani intuu dambaabay oo kafaare laga rabay ayaa isagii wax la siiyo la yidhi qaado oo cun waxaa keenay ogaanshiyihii la ogaaday waaqaca ninkani uu ku nool yahay iyo darfiga uu joogo saasi daraaddeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh tanaasulaadka ilaa xadkaa intuu gaadhsiiyey buu markii dambe wuxuu u ogolaaday isagoo aan ninkii dembiga sameeyey haddana waxoogaagii la siiyeyna warbal adiga iyo reerkaagu iska cuna idan in naska la dabaqaa oo waaqaca markaa jooga lagu dabaqaa waxay u baahan tahay ijtihaad badan iyo aqoon badan iyo daraaso badan aan masalo labaad tilmaamo waxaa laga yaabaa salaada waynu wada naqaanaa nusuusta qur-aanka iyo xadiidka ku soo aroortayna waynu naqaanaa laakiin marka loo dhaadhaco awoodda qofka qur-aanka ilahay wuxuu leeyahy laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha shareecada waxaa mar kasta inugu waajiba intaynu aweyno intaasaana islaamkiina saaraayo in la fuliya saa daraaddeed ayaa haddii qof maalan aanu istaagi karin maxaynu leenahay ninkii yidhi isma taagi kara nebigu muxuu ku yidhi salli qaacidan adoo fadhiyo tukaan la yidhi soo ma ahayn ka waran haddaan akriyo nusuustii sheegaysay salaadu istaagu inuu rukun ka mid yahay arkaanta salaada ka mida salaad la-aantuna rukunkaasi inaanay asixin nusuusta haddaynu isku akrino ka waran waa sax nusuusta waana ka mid